السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا ونسان داودي ملكتو دوني دافيدي كجوجتان ومركلي مقال cusub soo dhawaada. waxaan ku codsanay daawada markii kugu horeysay muuqaalkan soo martaa haday tahay inaad like saarto, subscribe garayso channel-kan oo ku soo biirtay aad baad u mahadsantahay daawada oo ku mahadsantahay kamaashin ku soo biirtaanka nadad u jiro hore u joogtay. waxaan ku leeyahay mahadsantahay taa cusubtana soo dhawo. tan iyo ilaa caawa abaarashantii garanimo waxa hawada si toos uga maqan shirkadaha WhatsApp, Instagram iyo sidoo kale Facebook. shirkadahan oo hal meel laga wada maamulo ama uu wada leeyahay ninka lagu magacaabo Mark Zuckerberg ayaa tan iyo shantii garanimo ee bariga Afrika saacadu markay ahayd hawada si toos uga maqan iyadoo ay baraha bulshada iyo sidoo kale warbaahinta caalamka si toos isula dhex marayaan in hawada ka maqnaanshaha applicationadan uu leeyahay milyaneerka daayirta ee Mareykan oo Mark Zuckerberg uu hawada ka maqayay inay u sababtay dad badan oo baraha bulshada ku kulmaa inay habeennimadan caawa aan ismaqal. sidoo kale su'aasha isweydiinta mudan ayaa in application-ka ka gedisan Facebook iyo sidoo kale Instagram iyo WhatsApp ay hawada ka maqan yihiin kuwaas oo iyaguna isweydiin mudan sababta hawada looga saaray. macada sababta ka dambeysay in hawada ka baxaan Facebook, Instagram iyo sidoo kale WhatsApp balse laakiin ciladan farsamo ay ku timi aaladahan kala duwan ee bulshadu isticmaasho ayaa sababtay jahwareer ku yimi dadka baraha bulshada sida tooska u isticmaala. sidoo kale malaayiin qof oo fariimo isugu gudbin jiray aalada WhatsApp iyo sidoo kale Facebook iyo dad kale oo sawirradooda ku soo bandhigay barta Instagram ayaa walwal balaaran ka qaba meesha ay ku dambeyn doonaan sawirrada iyo sidoo kale fariimaha ay u gudbin jireen asxaabtooda. si kastaba ha ahaatee daawadayaal arrintan la soo diristay shirkadda Facebook oo maamusha applicationada kala ah WhatsApp iyo Instagram oo hoos timaada aalada Facebook ayaa tan iyo intii shantii garanimo markii laga soo gudbo ay cilad farsamo ku timi. ma jirto xog rasmi oo ka soo baxday xarunta shirkadda Facebook oo cadeynaysa in applicationadani ay hawada uga maqan cilad farsamo balse laakiin waxa isweydiin mudan in sidoo kale hawada ka maqan application kale oo ka gedisan shirkadda Facebook. sidoo kale dadka ku sugan magaalada Hargeysa gaar ahaan Soomaaliland ayaa si toos ah uga cabanaya data ku shubashada ama sidoo kale prepaid-ka lagu isticmaalay internetka kuwaas oo sheegaya inaan hawada si toos ah aan u galaynin shirkadda marka lagu soo gaabiyo ama shirkadda la raado Somtel. si kastaba ha ahaatee daawadayaal dadka fariimaha ku wadaagi jiray baraha bulshada kala gedisan ayaa tan iyo ilaa maanta isticmaalaya ama ilaa shantii galmo wixii ka dambeeyay isticmaalaya applicationada loo yaqaan WeChat, Telegram iyo sidoo kale YouTube iyo TikTok oo ay muuqaalada ka daawadayeen.